salaanta islaamka assalaamu calaykum lada Shangani ama iskuul bartamaha oo runtii aan ku qornay shaqaale ka shaqeeya waaxda nadaafadda runtii qof kastoo shaqaalaana waxaan u goynay space nadaafadda looga shaqeyn karo labada qof ee isla shaqeynaysan u kala nabadgeli karaan oo caafimaadkoodii iyo cudurrada jiraad ogtihiinna ay ugu nabadgeli karaan runtii qofkiiba 120 talaaban u cabirnay qofkiiba cabirkiisa ayuuna ka shaqeyn doonaa si looga taxadiro caafimaadkiisa iyo shaqadii uu qabtana u soo baxdo runtii saaka shaqo aad u qurux badan aan qabanay waxaan rajaynaynaa goob kasta oo duqa magaalada Muqdisho dhagax dhigo annagana inaan ka shaqeyno bilicdeedii iyo quruxdii ay lahayd wadadaas aan soo saarno runtii annaga waxa nooga aadan ka wax ahaan waxay tahay inaan bilicdii iyo nadaafadda goobtaas ka shaqeyno runtiina waxa ugu shaqeynay si qurux badan haddana waxaan rajaynayaa wadada hadda aan taaganahay Engineer Yilso Stadium hormarta inaan shaqaale saarno oo ka shaqeyn doona oo rigli u ahaan doona haddii Ilaahay yiraaho waan ku faraxsanahay in saaki gudoomiye degmada Cabdicasiis oo halkan ka shaqeynaya aan ugu imaado runtii farxad weyn ay tahay waxaan ku bogaadinayaa cid kasta oo Soomaaliyeed wax qabanaysana inay u istaagaan magaaladan wax qabadkeeda sidoo kale waxaan rabaa inaan baaq u diro dadka ku nool magaalada Muqdisho runtii magaaladan Muqdisho waxaan ka shaqeynaynaa sidii bilicdeedii iyo quruxdeedii dib ugu soo noqon lahayd waxaan idinka codsanaynaa bulshada Soomaaliyeed meel kasta aad joogtaan inaad nagala shaqeysaan sidii kor loogu qaadi lahaa bilicda sababtoo ah shaqada annaga aan qabanno haddaad idinku nala qaban wax badan kama soo baxayaan oo waxay noqonaysaa hal bacad lagu lisay waxaan rajaynaynaa marka dhalinyarada Soomaaliyeed kuwa wax bartay iyo kuwa aan wax baranba inay nagala qayb qaataan sidii bilicdi magaalada Muqdisho kor loogu qaadi lahaa dhamaanteena isku kaashano magaalo kasta bulshadeeda iyo dadkeeda ayaa dhisa annagana inaan u istaagno aanan dhihin kaliya waxaan dawladda ayaa laga rabaa inay qabatee marka aad aragto wada qashin yaalo adiga iska bilow marka ugu horeysa halkaad sawir ka soo qaadi lahayd adiga ka bilow inaad wadada qashinka ka leexiso sababtoo ah meesha aad nagu dhaleeceynayso iyo xumaanta annaga naga sheegayso adigu Soomaali baa tahay xaq ayna kugu leedahay inaad wadada wax yaala ka leexiso waxaan ka rajaynaynaa marka muwaadin Soomaaliyeed inaad nagala shaqeyso kor u qaadista bilicda magaalada Muqdisho intaa kadib wadada hadda aan taaganahay waa wada aragteen muddo burbursaneed runtii bulshada Soomaaliyeed waxaan ugu digaynaa dhamaan guud ahaanba inaan marshibiyada korkiisa waxna laga dhisa karin sandbag la dhigi karin wax kasta oo bilicda xumeynayana ay muxuu ahay qof ku sameyn karta aysan jirin maamulka degmada Cabdicasiisna waa ku wargeliyay fariintii ahayd in marshibiyada korkiisa waxna aan laga dhisi karin waxaan rajaynayaa bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay joogto inay maqlayaan fariinteeduna ay gaari doonto marshibiyada waxa lagu talagalay qofka muwaadinka Soomaaliyeed ah inuu dul maro oo ku saaf garoow ay nafsadiisu gaadiidka ayaga ku kala nabad galaan markii goobtii danta guud marka ka dhisato sanduuqad yar oo shaah ku karisid ama aad ka dhisato sandbag gurigaaga difaaciisa ku ilaashato runtii wadada bilicdeeda way dhumaysaa marka bulshada Soomaaliyeed guud ahaanba digniintaas u diraya inay nagala shaqeeyaan nagalana qayb qaataan in bilicda kor loo qaado sidoo kale muwaadiniinta Soomaaliyeed ee gurigooda qashinada ina ka soo saara sidaad aragteen ciyaalka yaryarka ee caruurta ee gaari dameerada u soo dhiibayana waxaan ka codsanaynaa inay ayaguna nagala shaqeeyaan bilicda goobta sababtoo ah haddii ay ayaga nagala shaqeynin quruxda meeshaas annaga waxba ma qaban karno sababtoo gurigaaga uma ogolid in qashin uu yaal marka hana gaarsiinin in wadadii danta guud ahayd adiga iyo anigaba naga dhaxaysay qashin dhex dhigto